dalada nagaad ayaa qabatay munaasabad lagu xuseeyay maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarch. Munaasabadan ayaa intii ay socotay diiradda lagu saaray xaaladda guud ee haweenka Soomaaliland iyadoo lagu qabtay doodo falanqaynta dijitaalka, hal abuurnimada iyo sidoo kale tiknoolajiyada loogu talagalay sinaanta jinsiga. sidoo kale waxa halka lagu soo bandhigay filimo ka hadlaya Women Situation Room Somaliland, xarunta la socodka tacadiyada ka dhanka ah haweenka GBF call centerka iyo Hiba Nuuro oo ah gabadh daayar oo si tabarucaad ah wax u barta islaamaha hooyooyinka ee ku ganacsada suuqyada khudaarta ee Waaheen. Khadra Cumar gudoomiye ku xigeenka dalada nagaad ayaa daahfurtay munaasabadani ina aynu xusno u dabaal degno maalintan haweenweynaha adduunka oo inaguna aynu ka mid nahay sunaha baliyayno runtii inay tahay bishii March marka waxaan leeyahay horta dhamaanteen iyo dhamaantood baa hambaliyo baan leeyahay hambaliyo runtii waxa weeyaan bal in ay haweenku dib u milicsadaan maxay tahay sooyaalkii taariikheed ay soo dhaafeen iyo wax qabadkoodii kala duwanaaye hayaankii geediga halkay ka soo qaadeen iyo halkay marayaan marka waxaan idinku dardaarayaa halgan kasta oo istiraahadaan qabta amba wax kasta oo kabaha u soo xidhataan waxa idinka hor iman doona carqalado kala duwan haday tahay mid dhaqan iyo haday tahay mid bulsho iyo haday tahay waayo kale oo qoysnimada laakiin qofku markuu istiraahdo wax qabo amba ka midha dhali waxay u adkaysan karayaan marka qofkii adkaystay waayaha iyo waxa uu hiigsanayo iyo wadada uu rabo inuu maro iyo buurta halka ka shisheeyay sidoo uu gaari lahaa sida loo kala adkaysi badan yahay runtii amba ay uga kala go'an tahay qofkan inuu halkan ka dhaqaaqo uu halka gaaro ayo wax loo wada qabtaa waayaha iyo runtii waqtiyada adayga ku gadaaman hablaheena haday tahay waxbarashada haday tahay dhaqaalaha haday tahay ka qaybgalka siyaasadda iyo talada dalka haday dhinacyo badan tahay ayay nagaad waxay u xiratay kabaha muddada dheer waxa kale oo iyagana si gaar ah ugu hambalyeynaya hay'adaha ka qayb qaatay ee halkan ku qoran iyaguna aad u adag bayna sugaysaa waxayna sugaysaa in wadanka dhan bayna sugayadii wadan dhan oo Soomaaliland la yiraahdo markii laga sheekeynayo waxay hor yimid intii inan ay soo taagtay doorashadii deegaanka iyo golaha baarlamaanka runtii marna kuma naseexanin hal inanina idin soo bixin mayso rajadayadu waxay ahayd liisina wuxuu soo baxaan laakiin nasiib daro waxbay noomay soo bixin haddana waxa la yiraahdaa never give up haddana ma rajo dhigayno ma niyad jabayno waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno isugu jira garyaqaano dhaqaalayahan macallimiin iyo aasaasyaal xarumo kala duwan oo dhamaantoodba ah haween iyaga oo dood ka yeeshay arrimo la xiriira doorka ay haweenku ku leeyihiin dhanka tiknoolajiyada iyo hal abuurnimada. Tiknoolajiyadu runtii wax badan bay fududeysaa waayo waxa jirta iyadoo aan joogin goobahaaga shaqo ama halkii lagugu yimin lahaa in ama telefoon laga soo waco ama kulli waxa ugu muhiimsan laga heli karo waa telefoonaha way fududeysay tiknoolajiyadu. As a lawyer haddii aan guud ahaan u hadlo tiknoolajiyada dhinaca tiknoolajiyada kuma wacnin oo malihiin beejiyo wax nagala soo xiriiro laakiin telefoon baanu haysanaa marka qofku hadduu nawaayo by phone buu nagala soo hadli karaa especially aniga hota anu page baan leeyahay marka qofka bini'aadankii ama inanta ama ilmaha yar ee dhibaataysan haddii ay hooyadu u baahan tahay in la caawiyo dad badan baa jira page-kayga la soo xiriira marka haddii ay ku qancaan legal advisor-ka aan siiyo sometimes waxa jira waxyaabaha qaar oo aan ka qaban karin as a lawyer waxaan nahay defense lawyer marka tacadiyada waxaanu ka qaban karnaa matalan haddii ay ciqaab oo kala tahay waxaanu ku leenahay doorka kaliya oo legal consultant ama legal advisor baan siinaa laakiin haddii ay madani tahay waxbaanu kala qabanaa sida domestic violence-ka iyo inuu ninku ku tacadiye kale u keeno laakiin door ahaan defense lawyer baan marka cidina la soo xiriidha waxaanu siinaa legal advisor marka wixii inta ka badan ay ku qancaan xafiisyada ay yimaadaan si guud ahaan tiknoolajiyadu cawo
way caawisay waqtigaas dad badan baa aad uga xumaaday kiiskeeda oo ka falceliyay oo la raadinayay iyadoo maxkamaddu ku jirto dacwadaasi haddana in ay caawa cadaalad hesho iyadoo marka horeba ay tahay in xogta qofka dhibanaha ah la qariyo waxa uu adkeysan waayay waalidkeed cawo waalidkeed baa kiiskeeda bannaanka keenay si loo ogaado kadibna haddii ayba jiraan caruuro kale oo falkaasoo kale kaga dhacay xarunta ay ku jireen in baadhis lagu sameeyo anigu waqtigaa waxaan ahaa qareenka kiiska cawo ka shaqaynayay cawo arrinteedaas waxay ahayd wallaahi arrin aad u xanuun badan oo inan yar oo aan qaan gaadhin oo ay ku kufsadeen tiro inama ah oo qaarkood ka weyn yihiin qaarkoodna daa isleeg yihiin xaruntii lagu soo kariyey waxa weeyaan waa wax aad iyo aad looga xumaada bay ahayd waa la xukumay intoodii badnayd haddana emotional damage-kii soo gaadhay ilaa iminka wax ka ba'ay maaha social media marka waqtigaas cawo aad baa loo caawiyey faraysin baa loo sameeyey dadku waxay lahaayeen cadaalad ha hesho halku dhig bay lahayd cawo cadaalad ha hesho stiikaro badan baa loo sameeyey waxaasoo dhan oo loo sameeyey waxay ahayd in cawo cadaalad loo raadiyo cadaaladaas oo ahayd in dadkii wax u geystay cawo la xukumo ay maxkamaddu xukunto waxaan ka shaqeeyaa kambaniga Haas Petroleum waxaan ahay qaybta suuqgeynta gaar ahaan digital marketing-kana waan u hayaa at the same time waxaan ahay social activist usually message kan doonayo inaan gudbiyo ama aan doonayo inaan product kan promote gareeyo number 1 waa inaad garanaysid productkaaga ciddaad u fidinaysid iyo qaabkaad u fidinaysid marka saddexdaad marka tahansantahay I believe inaad success ku noqonaysid any platform aad isticmaalaysid teknolojiyadu waxa dhacda haddaan soo laabto xagga media oo kale aniga hawshaydaas haddaan maalintii ama media ama sawir layga qaadin amba muuqaal oo kale aan iga duubin oo aan la soo gudbin oo dadkii la tusin dee waxaan qabanaya cidina ma aragteen marka waxaan leeyahay waa awoodda dee teknolojiyadu leedahay marka shaqadii aan qabanayay ayaa la soo gudbiyey marka haddaanay teknolojiyad amba media aanu jiri lahayn dee teknolojiyadda waxba nagama teknolojiyadii macno ma yeelateen Hodan Siciid, telefishinka Saab, magaalada Hargeysa.